السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا مركزتوا عالم كاد كجوجتان isku soo noqod wanaagsan waa barnaamijkii aan su'aalaha walaaluhu igu soo diraan Instagram-ka aan kaga jawaabi jiray waxaan ku bilaabayaa caawa su'aasha ugu horeysa waa gabar waxay leedahay kun nin ayaan dartii uga haray waan isla soconnaa oo isla socosho way jirtaa laakiin ninkani wayga aamusan yahay telefoonkayga ma qabto waxaan isweydiinayaa ma waxaa tahay qof waalan oo wuxuu dhiman yihiin mise xiriirkaas sidan ah maxaad igula talinaysaa horta labada qof markay wada socdaan waxyaabaha ugu muhiimsan waa wada hadalka labada qof inay telefoonku wada hadlaan ismaqlaan waayo in uu xiriir jiro meeshii maxaa lagu garanayaa hadday tahay labadii qof inuu qof iska aamusayo telefoonka markuu rabo ka jawaabayo markuusan rabin uusan ka jawaabaynin laga yaabo xaaladaha qaar inuu qofku uu telefoonka ka blockto xaaladaha qaar asbuucyo inay qaadato oo telefoonka maaragtay kaaga soo jawaabi waayo ku yiraahdo waqtiga iyo waayaha uun baa sida dhigaya maaha micnaheedu inaanan ku jeclayn waan ku rabaa laakiin rabitaan meesha markuu jiro waxa la arkaa qofka ficilkiisa laga gartaa waxa la yiraahdaa actions speak louder than words waxa la yiraahdaa ficilada qofka ayaa ka maaragtay dhawaaq dheer hadalkiisa waayo qofku inuu xiriir kugula jiro waxyaabaha lagu garto oo cad ee muuqda wayna wada hadli kartaan qofkii wayna wada hadal idin ka dhaxeeyo wayna wax isla meelayn kartaan waayo hadii kale xiriirkii hore u socod ma lahaanayo hal meel baa taagantiin labadiinu qofkuna markaad aragtid in uusan telefoonka ka jawaabaynin dabcan su'aasha way dheerayd adii soo qortay marka aad qofka weydiisid oo tiraahdid maxaa qaldan oo uu ku yiraahdo waayaha sida ah iyo maaragtay mashquulka iska badan iyo wax la mid ah waxaad dib ugu laabataa nafahaantaada qofkan kow maalmihii ugu horeysay wiilkani uu jaceylka ku soo bandhiganayay ma sidan buu ahaa hadduu sidan ahaa oo intuu ku soo wacay jaceylka ku soo bandhigtay markaad aqbashay ka bacdi ay caado u ahayd bilowgiiba waa wax qofka kan caado u ah markaa lama dhihi karo waa wax lagu aadayn karo markaa isagii oo waxa laga yaabaa in noloshiisa ama lifestyle-ka uu ku nool yahay inay sidaa tahay dabcan iyadoo qadarin aad siinaysid shaqadiisa iyo qofkani waxa uu qabto iyo way xaaladaha qaar baa waxa dhacday inkastoo dhif iyo naadir ay tahay adiga oo hurda baa waxa laga yaabaa isaguna shaqadii iyo danihiisa ka soo dhamaado marka isagu uu shaqada ku laabtana waxa laga yaabaa oo uu dabcan shaqaysanayana waxa laga yaabaa adigii inaad firaaqo badan lahayn markuu xataa isagoo firaaqo helo ba waxa marmarka qaarkood way isdaba martaa oo xaalado badan bay dhacdaa laakiin haddana saasoo ay tahay micnaheedu ma ahan in qofku uu fariin kuu soo qori waayey kuu sheegi waayey meesha ay xaaladiisu marayso sida ay tahay update inuu ku siiyo haddii aad marka aragtid inuusan update ku siinayn marka aad weydiisidna uusan jawaab sax oo lagu qanaca ku siinayn xiriirkina aad aragtid in ciriiri iyo qalbigaaga culays inuu ku yahay isagina uusan wax cad kuu sheegaynin markaad weydiisidna oo lifestyle-kiisana aad fiirisid iyo siduu u nool yahay shaqada uu ka shaqeeyo waxaa laga yaabaa inuu shaqo saacado yar soo shaqeeyo ama inuusan ba shaqayn baa dhici karta xaaladaha qaar bay jirtaa inuusan ba shaqayn haddaad aragtid waxyaabahan oo dhan qofkii cagajiida aad ku aragtay horey markii hore aadan waxaad uga baratay aysan ahayn hadda isbedelkani uu yimid markaad aragtid in qofkii marka ilaa xad culays badan aad ku dareentay naftaada ha dhibin sida ugu wanaagsan ugu haboon ee qofka kani uu inuu kula socday iyo in kaleba uu ku garwaayo markan oo kale qofku waxa laga yaabaa inuu hurdo ku jiro hurdada sida kaliya uga soo kici karaa oo isu garan karaa waa inaad adigu xusuusinta ka daysid xusuusintan aad wacaysid maxaa kugu dhacay maxaad ii soo wici weyday maxaa kaa qaldan maxaa iska kaa bedelay su'aalahan oo dhan dhammaantood jooji markaad joojisid u yara kaadi marka micnaheedu ma xiriir gal laakiin u kaadi adigu way kugu adkaanaysaa marka ugu horeysa laakiin hubaal waxaan kuu hubaa aan boqolkiiba boqol kugu hubaa in ay miro dhali doonto mirahaasuna inuu soo noqdo kabacdina ku weydiiyo maxaa kaa qaldan oo maxaadan ii soo wacaynin waayo wuxuu kaaga bartay wicitaan wuxuu kaaga bartay raadin wuxuu kaaga bartay su'aalo wixii uu muddadan kaaga bartay ka goo ka jar marka no contact wax la yiraahdaa uu dhaco oo qofkan aadan la hadlin raadinaynin hubaal waxaan hubaa intuu isgarto inuu dib u soo noqdo uu ku soo raadin doono markaasaana aad fahmi doontaa inaad agtiisa qiimo ka leedahay laakiin hadda inta uu isaguna sii fogaanayo adiguna aad ka daba ordaysid su'aal aad weydiinaysid jawaabna uusan saxa oo ku qanacdi uusan ku siinaynin waxaad ogataa marba marka ka dambaysa waad ku sii fogaanaysaa marba marka dambaysa isaguna sidaas uu ku sii sugnaanaya adigana culaysku waa kugu badanaya si taa aad uga nafisid wicitaanka iyo raadinta iyo dabagalka ka jooji si kastoo naftaadu dhibsanaysaba waxaan ku hubaa 2 week 3 week 4 week ilaa bil caadi baad noqon ka bacdina isagoo soo noqday baad arki doontaa